السلام عليكم السلامية يا أصحابنا muuqaalkan waxaan ku eegaynaa qaabkii aad u samayn lahayd muuqaal kasta oo markaa YouTube ku jira oo luqaddu doona ha noqdo aad ugu rogi kari lahayd markaa Soomaali hadaba ila soco ilaa dhamaadka qodobka koobaad ay tahay inaad samayso wuxuu weeye Chrome-ka ayaad ka soo kicin doontaa YouTube ka soo kicin meeshii YouTube-ka caadiga waxaad ka soo kicin doontaa Google-ka kugu jira Chrome ha noqdo ama browser-ka doontaba inta markaad samayso waa inuu desktop ku ahaada bishuruudi shuruuda markaad ka soo gudubto waxaad samayn doontaa YouTube-ka ayaad markaa dooran doontaa YouTube-ka markaad ku dhufato waxaad samayn doontaa search sidii caadiga ahayd ayaad YouTube-ka u dhigaysaa markaa waxaad doonaysay muuqaalka markaa luqaddu doona ha noqdo waxaad samayn doontaa intaa ku xiga captionska hoose taaban maysid laakiin setting-ga ku ag yaalla ayaad taabanaysaa setting markaad taabato wuu soo bixi doonaa list ay ku qoran tahay markaa automatic translate markaad ku dhufato waxaad ka sii dooran doontaa luqadda doonaysay intaa markaad samayso wuu soo bixi doontaa luqaddii markaa Soomaali oo ku jirta liiska Soomaali waad ku dhufan doontaa sidaa muuqaalku ku noqon doonaa qoraalka xagga hoose soconayay af Soomaali aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin wasalaamu calaykum As far as Chelsea fans were concerned, the vast majority of them loved Roman Abramovich, and the club won lots of trophies. Now, just over 2 years ago, we had So, go on then. What's happened? Why are Chelsea in the news? Well, I mean, there's always something happening at Chelsea on and off the pitch. I mean, the background to all this is that obviously, for 20 years, Chelsea were owned by Roman Abramovich. He effectively ran it as a family business. Everybody knew that he was in charge, and although his ownership of the club was very controversial, the background as far as Chelsea fans were concerned, obviously, the vast majority of them loved Roman Abramovich. Chelsea were owned by Roman Abramovich. Lots of trophies. He effectively ran it as a family business. Just over 2 years ago, he was in charge.